markii rasuulka naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo saxaabadii reer Maka ee muhaajiriinta ah ay soo gaadheen Madiina waxyaalihii ugu horreeyay ee rasuulkeenu sameeyay waxaa ka mid ahaa inuu walaaleeyay kuwii muhaajiriinta ah iyo kuwa ansaarta ahaa ee loo yimi martida loo ahaa. waxyaalaha cajiibka ah iyo qisooyinka soo arooray ee ka dhashay walaaltinimada runtii haddii aad u fiirsatid waad cajabaysaa. ulajeedka rasuulku uu ka lahaa sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd mar haddii kuwan muhaajiriinta ay ka yimaadeen dadkoodii hantidoodii deegaankoodii oo ay soo barakaceen inaanay ku cidloon meeshan ay qariibka ku yihiin oo ay ehelka helaan ama asxaab u dhow. qisooyinka aadka loo xuso ee cajabta leh waxaa ka mid ah cabdiraxmaan bin cawf saxaabiga jaliilka ee ka mid ah 10 jannada loogu bishaareeyey ayaa rasuulku wuxuu la walaaleeyey sacad bin rabiica. waxaa cajab leh sacad ficilkii uu sameeyey cabdiraxmaan bin cawf ayuu soo kaxeeyey guryihiisii ayuu keenay mid ka mida beerihiisa ama hantidiisa ayuu wuxuu ku yidhi labadaas ayaan leeyahay taad rabtid qaado. xaasaskiisii ayuu tusay wuxuu yidhi xaasaskayga waa kuwaase midda ku cajabisa ee ugu qurxoneed ka heshid dooro waan kuu furayaa. waxaase ka sii cajab badan sidii uga falceliyey gobonnimada intaa leeg cabdiraxmaan bin cawf waxaana uu ku yidhi isagoo u ducaynaya baaraka allaahu fii ahlika wa maalika ilaahay ha kuu barakeeyo ehelkaaga iyo maalkaaga ee dullunii cala suuq aniga waxaad i tusisaa suuqa. cabdiraxmaan bin cawf waxa uu ahaa nin hal abuur leh oo runtii ganacsiga aad u yaqaana wuxuuna ka mid ahaa raggii tujaarta ahaa ee muslimiinta in badan ay ku baxsadeen oo maalgelin jira ciidamada muslimiinta. ganacsi ayuu abuuray suuqii waxa weeye Madiina ayuu tegey runtii muddo yar kooban markuu joogay waxa uu noqday mid hanti samayso ganacsada weyna. halkaan u socdaa waxay tahay casharada aynu ka fahmayna waxay tahay saxaabadu sida isu jeclaayeen oo walaaltinimadu dhab u ahayd oo ay gaareen heer ninku yiraahdo hantideeda badh baan ku siiyay qaado xaasaskaygana taa ku cajabisa ayaan kuu furayaaye dooro. waxay ahayd arrin cajiiba heerkaana waxaa gaadhsiiyey markii iimaanku dhab ka noqday oo ay rasuulka